Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa nin aad u layaab badan. Waa nin aan la saadaalin karin go'aamadiisa oo aad isku bedbedela. Safarkii uu dhawaan ku tagay dalalka Khaliijka ugu tunka weyn, gaar ahaan dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar, wuxuu ka soo saxiixday mashaariic ku kacaysa trilyan dollar inay ku maalgashan doonaan Mareykanka. Wadamada Khaliijka marka laga yimaado mashaariicda kale ee ay Trump uga bedesheen balaayiintaas dollar ee ay ku maalgashan doonaan Mareykanka, sida in Mareykanka uu ka iibin doono hubkiisa casriga ah sida diyaaradaha dagaalka, nidaamyada difaaca hawada. Sidoo kale waxay ka codsadeen sidii uu u damaanad qaadi lahaa xasiloonida iyo ammaanka mandiqada Bariga Dhexe, iyo inuusan taageerin qorshaha Israel ku doonayso inay ku weerarto Iiraan. Sidoo kale Trump markuu booqday dalka yar ee Qatar, wuxuu ka dhawaajiyey hadal abuuray hadalhayn weyn. Isagoo la fadhiya amiirka Qatar ayuu Iiraan ku yiri, waa inaad u mahad celisaan amiirka Qatar, sababtoo ah wuxuu ahaa midka kaliya ee ka soo horjeeday in Iiraan la weeraro ama la burburiyo. Haddaba maxaa isbedelay? Trump markii uu dib ugu laabtay aqalka cad, wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Iiraan iyo in uu weerarayo Tehran, iyo sidoo kale in uu dib ugu laabtay wadahadaladii barnaamijka nukliyeerka ee Tehran. Haddaba maxaa isbedelay oo Trump ku kalifay in uu dib ugu laabto wadahadaladii dhinaca diblomaasiyadda? Qorayaasha iyo falanqeeyaasha sahayanada iyo kuwa Mareykanka waxay saacadihii lasoo dhaafay daabacayeen in Trump uusan ahayn nin degan ama meel loo raaco leh. Haddaba warbixintan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa isbedelka weyn ee ku dhacay Trump kadib markuu dib ugu laabtay booqashadiisii wadamada Khaliijka. Hadalkii ugu dambeeyay Trump ka hor inta uusan dib ugu laaban Khaliijka wuxuu ahaa in barnaamijka nukliyeerka Iiraan lagu xallin doono dhinaca diblomaasiyadda, dhinaca kalena ay cunaqabataynta dhaqaale ee saaran Tehran ay halkeeda kasii socon doonto. Trump sidoo kale wuxuu qaaday tallaabo kaloo weyn kadib markii uu markabka ugu weynaa ee xambaara diyaaradaha dagaalka uu dib ugala baxay biyaha Khaliijka, taasoo ahayd fariin kaloo muujinaysa in Trump uu dib uga laabtay go'aankiisii hore ee uu ku doonayay in uu ku weeraro Iiraan. Steve Witkoff, oo ah danjiraha Trump u qaabilsan arrimaha Bariga Dhexe, sidoo kalena gacanta ku haya faylka Ruushka iyo Ukraine, ahna ninka uu Trump sida weyn ugu tiirsan yahay, ayaa wareysi uu siiyey mid ka mid ah telefishinada Mareykanka wuxuu ku sheegay in Washington marnaba aysan aqbali doonin in Iiraan 1% xitaa ay bacrimiso barnaamijkeeda nukliyeerka. Wuxuu kaloo ka dhawaajiyey in Mareykanka uusan aqbali doonin in Iiraan ay horumariso hubka waxgumaada ee nukliyeerka. Haddaba aan wax yar isla daawano hadalka Steve Witkoff. Have one very clear red line, and that is enrichment. We cannot allow even 1% of an enrichment. Wuxuu leeyahay waxaan leenahay qad cas oo aan mugdi ku jirin, waana bacriminta uraniumka. Mana ogolaan doono Iiraan inay bacrimiso xitaa 1% uraniumkeeda. Steve Witkoff ka sidaan leh isbuuc ka hor wuxuu lahaa waxba kuma jabna haddii Iiraan ay bacriminayso uraniumkeeda iyadoo ku dabaqaysa heshiisyadii hore ee nukliyeerka. Sidoo kale wuxuu sheegay in 1, 2 ama 3% haddii ay bacrimiso aysan wax dhibaato ah lahayn. Aan isla daawano hadalkan oo isbuuc ka hor ku dhawaaqay. The conversation with the Iranians will be much about two critical points. One, enrichment. As you mentioned, they do not need to enrich past 3.67%. Haddaba maxay noqotay jawaabta Tehran? Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan, Abbas Araghchi, markii uu maqlay in maamulka Trump ay dhinaca warbaahinta u soo mariyeen fariinta inay isaga baxeen wadahadaladii nukliyeerka, wuxuu sheegay in horumarinta barnaamijka nukliyeerka ay saynisyahano qaali ah ku waayeen sida Muxsin Fakhrizadeh oo la aaminsan yahay in ay khaarijeen sirdoonka Israa'iil ee Mossad. Waxaa la aaminsan yahay in uu ahaa aabihii mashruuca barnaamijka nukliyeerka Iiraan. Sidoo kale Abbas Araghchi wuxuu xaqiijiyey in Tehran ay sii wadi doonto barnaamijkeeda bacriminta nukliyeerka haddii Washington ay joojiso wadaxaajoodyadii socday iyo haddii kaleba.